gudoomiyaha urur siyaasadeedka ka mudane maxamuud xaashi cabdi iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay degmada taariikhiga ee Garadag. Soo dhaweynta gudoomiyaha ayaa waxa si weyn uga qayb qaatay mudanayaasha golaha deegaanka degmada Garadag, madax dhaqameed iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee degmadaasi. Waxaana duleedka galbeed ee degmadaasi kaga hortagay taageerayaasha urur siyaasadeedka ka oo ku jeenay qaaran calanka ururkaasi iyo kelmada ay ku soo dhaweynayaan gudoomiye xaashi iyadoo lagu soo dhaweeyay gamaanka fardaha. gudoomiyaha urur siyaasadeedka ka ayaa loo soo galbiyay goobtii loo asteeyay inuu kala hadlo taageerayaasha tirada badan ee urur siyaasadeedka ka ee degmada Garadag. waxaana ugu horeyntiiba halkaasi hadalka iska daba qaatay madax dhaqameedka mudanayaasha golaha deegaanka waayeelka iyo taageerayaasha urur siyaasadeedka ka ee degmada Garadag iyagoona si weyn u soo dhaweeyay gudoomiye xaashi iyo waftigiisa. aan soo dhaweynayaa xusbiga ka baan soo dhaweynayaa waa sugaynay waa ka naxo nafta kullee cid baa ka naxaysa cidda ka naxaysana waa garanaynaa. maxamuud xaashi markii uu sangaha qoorqabka saaraa ee uu madashan joogay tilmaan buu ina siiyay reer Garadagow. tilmaantaasi waxay ahayd 6 farood 6 farood. tilmaanta koowaad waa 5 farood oo waa urur siyaasadeedka ka farta kalena waxay tilmaamaysay isagoo ah ninkii guusha oo wado Cabdiraxmaan Maxamed Cirro isagana waa farta gaarka ah ka weeye meesha hadalka waxaan uga daleelay waa yar yahay ka weeye meesha aynu joognaa ka laga bilaabo waa degmadu waa ku kalsoonahay waa soo dhaweynaynaa waa dhisaynaa waa dhaqaalaynaa niyadda ereyga hadal badan tan baa dhaanta ereygaan u baan uga daleeyahay sidaas ay naga tahay hada waa salaam ku soo dhawaada degmada Garadag oo aadin rabta oo aad soo dhaweynaysa ku soo dhawaada dadweynaha oo aad iyo aad adin jecel idinna raagsaday idinkoo safar dheer ku jiray adin raagsaday ku soo dhawaada. intaa waxaan ku darayaa waa degmo ballaadhan waa degmo dhowr iyo 20 goobood oo haddii badankeeda ahayd codbixineed leh hawsheeday leedahay hawsha dhulka taalla ee ka u taalla ee soo bixidiisa u taalla degmada Garadag gudaheeda ma aha ha lagu talagalo ballaadhnaanta ay tuulooyinkoodu leeyihiin ee faraha badan. gudoomiyaha iyo waftidiisa gudoomiyaha urur siyaasadeedka ka maxamuud xaashi cabdulle waxaanu ku soo dhaweynaynaa iyo madaxda la socotay ururka degmada Garadag si mug iyo miisaan leh marqaati madoona ayaanu ugu soo dhaweynaynaa indhihiina ku arkaysaan annaguna aanu diyaar la nahay cod iyo macnaha iskarabtaagba isaga iyo isbahaysiga gudoomiyaha Cabdiraxmaan Cirro inaanu taageerno oo codkayaga ku taageerno oo isla garab taagno si mug iyo miisaan leh ayaanu halkan ayaanu la taaganahay inaanu idinku soo dhaweyno. dadweynaha reer Garadag waxaan aad iyo aad mahad ugu celinayaa warkii aanu sheegnay ee nidhi golaha deegaanka haddaanu ahayn reer Garadag waxa weeye waa diyaar golihii deegaanka miisaankiisa halku joogaa waana raggii codka saamaynta ku lahaa 20ka tuulo iyo degmada Garadag oo magaalo madaxdii degmada ah saa noogu marqaatiga noogu furteen oo u soo baxdeen aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin dadweynaha reer Garadag. waxaanu idiin haynaa abaal mahadnaq aan la soo koobi karin aad iyo aad baa u mahadsantihiin. waxaan kaga tegayaa goor gaaban hadalkeed gaaban waa inoo maalinta codka iyo isbahaysiga aynu ururkeennana la soo baxno madaxweynaha isbahaysigana soo saarno sidaasoo iskuma ogin sidaasay inoo ballana saasaynu u shaqaynaynaa qof waliba cid buu doonayaa intan iyo inka badan baynu doonaynaa waxaynu doonaynaa halkii dad baa meelaha ka yiraahda Garadag waa kulmiye waxa weeye ishii bugtay ku bikaacso kulmiye waxa weeye Garadag waa ismaciil salaameeyeen baan weeye
dadkiina waa ka aad iyo aad u mahadsantihiin. sharafay noo tahay inaan halkan maanta ku soo dhaweyno gudoomiyaha urur siyaasadeedka kaas waxay noo ballanaa maalinta saduuqa la gaadho haddii ilaahay ka dhigo 13 Noofembar inay saduuqa ku hubsano 2 cod oo kala ah codka koowaad oo ay siinayno urur siyaasadeedka ka codka labaadna ay siini doono musharaxa madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro siyaasadeedka ka ee uu hogaaminayo Maxamuud Xaashi Cabdi iyo wafdida ballaaran ee la socota aad baan u soo dhaweynayaa degmada Garadag baan ku soo dhaweynayaa annagoo ah aqlabiyadii golaha deegaanka ee degmada Garadag kale oo wafdida u sheegaya dadkan reer Garadag ee halkan jooga ama idinka hor yimi dad aan wacyi gelinay maaha waa dad iyagu iswacyi geliyay oo ku talagalay inay soo saaraan oo u codeeyaan ururka siyaasadeedka ka oo xisbi ka dhigaan oo ilaa madaxweyne la socdaan maantana waxaynu hogaamin doonaa guusha ururka ka oo xisbiga ku noqonayo iyo ka isbeddelka lagaga samaynayo waddanka waxay doonayaan inay hormoodnimada iyo xagga hore aad bulshada kaga jirtaan dib idin celiyaan miyay ka yeelaysaan waxay rabaan in dib laydin eego waxay rabaan in dib laydin canaanto waxay rabaan in dib laydin dhaliilo miyaad ka yeelaysaan waxaynu heshiis ku nahay waxaynu isku ognahay haddaannu nahay xildhibaanadii golaha baarlamaanka u dirateen iyo sidoo kale xildhibaanadii deegaanka ee halkan ka wada hadlay oo aqlabiyadoodii ay ururkan ka tirsan yihiin gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaankuna wuu inoo iman doonaa isagoo calanka kaasida xildhibaankii kalena wuu soo socdaa isagoo calanka kaasida uu idin iman doonaa maxaad noo dooranayseen xogayii golaha wakiiladuna wuu idin yimi maxaad noo dooranayseen haddaydinaan masiirkiinna nagu aaminin halkaannu idinkula talinno haddaydinaan nagu aaminin inaannu halkii aad noo dirateen lagu hungoobay oo aanan annagu quri ku hungoobanay qarankoo dhimi ku hungoobay meeyay ciidamadeennii mee difaacii qaranku meeye wixii aynu 30 sanno ka shaqaynayna ummadnimadeenni meeday kulmiyaa cunay aniguna waxaan ahaa kii 2017kii kambeynarka u ahaa ee idinku yidhi kulmiyaynu codaynana kambeyn maanayshar anigaa halkan ku ahaa waxaan idiin sheegayaa xildhibaan anigaa u ahaa waxa xildhibaan ka soo baxay Saalax Maxamuud Diiri waxa ka soo baxay Mustafa Qeyray waxa ka soo baxay dhammaan xildhibaanada beesha bariga Burco 7 xildhibaan oo ka soo baxay hal xildhibaan baa kala jooga maanta oo isaguna waddanka ka maqan waxaan ugu dambeyntii halkaasi ka mahadnaqay gudoomiyaha urur siyaasadeedka ka mudane Maxamuud Xaashi Cabdi soo dhaweyntan meeqaamkeedu sareeyo Garadag waa meel siyaasadda aan guurin geedi guracan Garadag guga iyo jiilaalka siyaasadda midna kama gedmado Garadag waa goob ku caana guurtinimada garashada geesinimada iyo garsoorka siyaasadda waa meel ku caana Garadag isbedelada siyaasiga foolaad bay ka noqotaa hormood bay ka noqotaa xagga dambe kama marto Garadag waa goobtii lagu cimaamaday lagu caleema saaray Axmed Siilaanyo Garadag waa goobtii lagu cimaamaday lagu caleema saaray madaxweyne Muuse Biixi Cabdi maantana caad igama saara doorashada ururadana inay ka caleema saari doonaan doorashada madaxtooyadana ay Cabdiraxmaan Cirro iyo ku-xigeenkiisa caleema saari doonaan Ismaaciil Bakele San TV wararka gobolka Sanaag